waxaan dhammaan ummadda Soomaali meel kasta ay joogaan aan ugu hambalyeeynaa 60 guuradii ka soo wareegtay xornimadii gobolada waqooyi ay qaateen 26 Juun 1960 taasoo aasaas u noqotay midowgii Soomaaliya 1 July 1960 waa maalintii ugu horeysay oo la taagay calanka Soomaaliya oo laga taagay calanka buluuga ah dhul Soomaaliyeed imaamkii tixdii gabayga ah uu noo tiriyay oo Cabdullaahi Suldaan Timcade uu tiriyay ee ku magacaabay kaana si kana saar tixdii taariikhda gashay oo Cabdullaahi Suldaan Timcade uu ka jeediyay beertii xorriyadda ee Hargeysa waa maalintii uu guulaystay halgankii dheeraa ee gobonimo doonka waa maalintii gobollada waqooyi ee dalkeenna ay xorooween waa maalintii horseeday midnimada iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed maanta aan ku naaloonayno waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xuska iyo weynaynta taariikhdaas qiimaha weyn noo wada leh ee eebbe na halalsiiyey oona tusay inaan sidaan quruxda badan aan ugu maamusno waxaan runtii qorsheynaynay intaan in ka badan inaan gelinno oo guddi aan u saarno 60 guurada sanadkii la soo dhaafay oo aan qorsheynaynay runtii shaqo aad u far badan inaan qabanno oo 60 guuradan ay ka weynaato kuwii hore bacdamaa aan 60 jirsanay laakiin nasiib darro waxaa caqabad badan ugu noqday COVID-19 oo socodkii adduunka oo dhan yareeyey annaga dhexdeena xitaa socodka yareeyey wax badan aan qaban lahayn runtii na hor istaagay laakiin waxaan qorsheynaynay inaan aad iyo aad u weynayno sidaad arkaysaan caawa xitaa buloleerkii la samayn jiray waa naga soo gaari waaye waxaan dareensanahay qiimaha weyn ee madax banaanida iyo yagleelidda qarnimada ummadda Soomaaliyeed ay ugu fadhido waxaa la soo maray halgan dheer
ونف يا مالبا لو بحيي وها مهد إلهي ومهد كله halgamayaashii dadkii runtii ilaahay ku aadiyey inay fahmeen waxa kaliya oo gobonnimo lagu heli karo iyo midnimo lagu heli karo inay tahay in laga guuro ama laga tago qabiilka iyo qabyaaladda waxa kaloo mahad ka leh halyeeyadii u soo halgamay ama soo dagaalamay oo u huray naftoodii iyo dhiigoodii dhaxal wanaagsanna looga tegay oo aan haynaa hadda halgankii xornimadoonka ee ka socday dhammaan dhulka Soomaalida waxaa kaalin weyn ka qaatay dhalinyarada Soomaaliyeed hadday yihiin koonfur iyo waqooyiba dhalinyaradaas oo ku mideysnaa ururadii gobonnimodoonka ahaa ee la oran jiray SNL iyo SYL waxaa xusid mudan kaalintii SNL ay ku lahayd halgankii gobonnimodoonka iyo xoreynta gobollada waqooyi oo la mid ah doorkii ay SYL ku lahayd xornimada gobollada koonfureed labadaas urur waxay lahaayeen xiriir adag waxay ku mideysnaayeen hal hadaf oo ah midnimo oo ah xorriyad in la helo saas darteed waa inaan mar walba aan muujinno doorkii SNL ay ku lahayd sidaan u muujinno tan doorkii ay ku lahayd SYL mar walbaba waxaa hubaal ah in dhalinyarada SNL iyo SYL ay guteen waajibaadkii ka saarnaa jiilkan hadda jooga inay ku noolaadaan xorriyad iyo sharaf 60 sano kadib waxa ay xaqiijiyeen jiritaanka jiilka hadda jooga waxay xaqiijiyeen jiritaanka dal Soomaaliyeed oo xor ah waxayna taariikhda ku galeen inay ahaayeen dad ogaa in lagu gaari karo gobonnimo iyo midnimo in lagu gaari karo waxa ugu horeeya daacadnimo sida sheegeen iyo cadaalad suubanaan iyo wanaag wadaniyad ama patriotic walaaltinimo is-ixtiraam isqadarin geesinimo in loo dhinto dalka markay ay gaarto iyo in kor loo qaado qof walba oo Soomaali ah qabkii Soomaaliga iyo sharafkii in kor loo qaado oo wax walba laga hormariyo intaas ayay ahayd wixii keenay midnimada maanta iyo gobonnimada aan ku naaloonano kuwii naga horreeyey oo aan ku sheegnay SYL iyo SNL waxay nooga tageen dhaxal su-aashu waxay tahay maxaan annagu uga tegaynaa kuwa hadda jooga waa ognahay waxay nooga tageen inay ahayd inaan Soomaaliya xor noqotay inaan midownay inaan yeelanay dawlad midnimada macnaheedu waa xooggaasna aan ku istaagnay dadkeennii ay ku heleen maxaan ku raahdaa adeegii bulshada dhallinyaradeenii ay heleen iskuul lacag la'aan ah waxbarasho lacag la'aan ah caafimaad lacag la'aan ah in la dhiso amnigii iyo dowladnimadeennii iyo ciidankeenni la dhiso kadibna markii annaga hawsheennii dhexdeenna aan dhammaynay aan u tallaabnay inaan Afrika wax ka xoreyno oo cidda naga liidata aan kaalmeyno aan gargaarno maanta marka adduunka aad aado cid walba kula hadasha waxay soo xasuustaan Soomaalidii hore iyo siday ahaayeen iyo sidaan Afrika u caawinay iyo marba ku sheegaan iyo sidii aan garab u siinay qolooyinkii markaas dawladihii aan gobonnimada gaarin waxaasoo dhan waxaan ku gaarnay waxay ahayd midnimo waxay keentaa dawlad wanaag midnimo waxay keentaa bulshadaada inay ka xaqabeelaan adeegooda iyo wixii dawlad laga rabay